saaxiibka quruxda badanow ku soo dhawow muuqaalka maanta. sheekadu waxay ku bilaabmanaysaa kadib dagaalkii labaad ee adduunka. waxaa socday dagaal qabow oo u dhexeeya Ruushka iyo Mareykanka. Ruushkuna waxa uu waday tijaabooyin uu iskaga ilaalinayo Mareykanka. waxay bilaabeen inay sameeyaan tijaabooyin kuwaas oo lagu sameynayay dadka iyo duunyadaba. waxaana la kala bedelayay DNA-gooda. tijaabooyinkaas ayaana ka socday magaalooyinka kala duwan ee dalka, kaas oo dadka qaarkii laga dhigayay nooc ka duwan kuwii hore. tijaabooyinkaasna ayaa lagu guulaystay dadka qaarkood. dadka qaarna waxa ay yeesheen awood sare, waxa ayna isku rogeen kuwo heero ah. halyeyga ugu horeeya waxa uu ahaa midkii la bedelay DNA-giisa, waxa uuna isku bedelay xayawaan xoog badan. halyeyga labaadna waxa uu ahaa mid xawaarihiisu aad u sareeyay, yaqaana hababka dagaalka. midka saddexaadna waxa uu kontarooli karaa walxaha dhulka sida biyaha, hawada iyo dhagaxyada. midda afaraadna waxay ahayd haweeney la oran jiray Shiyaan, taasoo awood u leh inay iska dhigto midaan la arki karayn, waxayna kordhin kardhaa ama hoos u dhigi kardhaa heerkulka jirkeeda. afartaanna waxay ahaayeen kuwa ugu caansan ee superhumanka. brofesoorkii ayaa dhammaantoodna uga waramay mashruuca. kuwaani waa tijaabooyinkii ay sameeyeen Ruushka. dhinaca dalka Mareykankana saynisyahan lagu magacaabo Augusto ayaa lagu arkay shaybaarkiisa Ameerika. natiijo ahaana tijaabooyinkiisii faraha badan waxa ay noqdeen kuwo fashilmay. mas-uuliyiintii Mareykankana waxay mamnuuceen sameynta tijaabooyinka. August waxa uu ka hinaasay tijaabooyinkii Ruushka ee guulaystay. isaga oo xaasidnimo sameynaya waxa uu aadayaa Sofiyeetka. markuu halkaasi gaaro waxa uu sameeyey tijaabooyin sir ah, kuwaas oo ahaa kuwo sharci darro ah. dad badan oo aan dembi lahayn ayaa dhibano ku noqday tijaabada. markaasi militarigii waxay ogaadeen in sifo sharci darra uu u sameeyey tijaabada. ciidamadii ayaana weerar ku qaaday shaybaarka Augustna dhammaan shaybaarkii waxa uu ku xiray bam. saraakiisha ciidanka ayaana halkaa ku dhintay. isaguna tijaabadii waxa uu ku sameeyey naftiisa, waxa uuna u ekaa xayawaan. waxa uuna isku bedelay cybernetic organism si uu u maamulo dhammaan mashiinada ku shaqeeya electronic. waxa uuna leeyahay sidoo kale awoodda dhalinka korontada. hadda ciidamada kale ee Horoniska ma lahan awood waayo aragnimo oo ay kula dagaalamaan ninkan. sidoo kale ciidamaduna ma laha awood ay kaga hortagaan. markaana ciidamadii waxay la yimaadeen mashiinadooda robotku ah si ay uga hortagaan. isla mar ahaantaana dhammaan robotyadii waxay noqdeen kuwo aan shaqaynayn. waxayna bilaabeen inay burburiyaan xarunta kontaroolka ee ciidanka. natiijo ahaan saraakiil iyo askar badan ayaa halkaasi lagu dilay. Augusta ayaa waxaasna ka mas-uul ahaa. intaa kadib wasaaradii gaashaandhiga waxay qabatay shir, waxaana la go'aamiyey in la helo halyeeye awood badan. markaa waxay la dagaalami karaan Augusto. halyeeyadaasna waxaa taageeradooda bixinaya dowladda. taliyaha howlgalkana waa maajar lagu magacaabo Alena. maajaradaas ayaana amar kooxdeeda ku bixisay inay sameeyaan dadaallo ay ku raadinayaan kuwo awood leh. waxaa la helay wakiilkii koowaad, kaas oo marar badan isku dayay inuu ka hortago Augusto. ninkaasna waxa uu ogolaaday howlgalka ciidanka ay kaga soo horjeesanayaan August. subarkii labaad waxaa laga soo helay wadan kale, waxa uuna diyaar u noqday inuu dowladda garab siiyo. wakiilkii saddexaadna waxaa laga soo dhex helay kaynta. qofkii ugu dambeeyey waa haweeney lagu magacaabo Shiyaan. dhammaantoodna waxay u diyaar garoobeen howlgal. waxa ayna bilowgii qorsheeyeen sida ay u burburin lahaayeen shaybaarka August. markay halkaasi tageen waxay la kulmeen heegan adag oo dhanka ammaanka ah. ciidamaduna waxay ilaalinayeen dhammaan shaybaarka.
kow waxaa dhaqaaqday Shiyaan. Marka August oo dareemay ayaa bidaamiyey muuqaalka Shiyaan. Marka ciidamadii ayaa rasaas ku furay waxayna noqotay mid baraf ah. sidoo kale ninkii awoodda badnaa waxaa lagu qabtay shabag koronto ah, halka midkii saddexaadna lagu muday cirbad suuxdin ah. waxaa soo haray ninkii dhagaxa ahaa. markaasi waxaa iswajahay Augusto iyo ninkii. Augustna waa uu ka awood badnaa ninkaasi. markaasi dhammaantooda waa la wada xiray. waxa uuna u soo bandhigay ikhtiyaar ah inay ku soo biiraan kooxdiisa. 3 ka mida waxa uu uga dhex tegay magnetic fieldiga kaas oo hoos u dhigaya awoodooda, halkii midkii afaraadna oo horey isku dagaalsanayeen uu bilaabay inuu dilo. markaasi Augusto waxa uu jiheeyey taangiyada iyo gaadiidka dagaalka. waxa uuna u jiheeyey goobta dadka ay ku badan yihiin ahna caasimada, halkaas oo buuq badani ka dhashay. dhammaan taangiyaduna waxay u hoggaansanayeen xukunka Augusto. dad badan oo aan waxba galabsan ayaa ku dhibaatooday. kadibna waxa uu soo saaray labada daarood ee ugu waaweyn ee magaalada oo uu geystay meel. ujeedadiisuna waxay ahayd inuu maamulo ishaarooyinka iyada oo loo marayo satellite-ka. haddii taasi dhacdana waxa uu heli doonaa xakamaynta dhammaan tiknoolajiyadda iyo dayax-gacmeedyada. marka sidaa la sameeyo, qalabyada sida gantaalada, helikobtarada, diyaaradaha ayaa sidoo kale hoos imaan doona gacantiisa. waxa uuna qabsan doonaa adduunka oo dhan. marka Major Alina ayaa raadisay kooxdeeda oo ay soo badbaadisay. waxayna keentay xarunta wadaniyadda oo ay u malaysay in kooxdani aysan haysan wax tababar ah. kadibna waxay soo heshay August saaxiibkiisii hore ee qaybta shaybaarka. waxa uuna wax ka sheegay Augusto iyo mashruuciisa. dhinaca kale Augusto waxa uu kor u qaaday dhammaan munaaradaha. robotyadiisa oo dhanna waxa uu dhigay dhismayaasha ku xeeran. waxayna halkaasi ku dilayeen cadow kasta oo soo weerara. Major Alina waxay u diyaargarowday inay tababar buuxda ah siiso siday u dagaalami lahaayeen, sida hubka loo rido. waxaana sidoo kale loo diyaariyey labis waafaqsan hawshooda. markaasna waxay helayaan awood dheeraad ah sababtoo dharkaasi waxay ahaayeen kuwo khatar ah. kooxda oo markaana oo hubaysan ayaa u diyaargaroobay inay ka hortagaan ragga August. markay dhammaan ciidamadii ay laayeen waxa ay yimaadeen balakoonka dhismaha ugu sareeyay ee August. waxaana jiray tuubooyin xooggan oo isku xirayay dhismaha iyo munaarada. intay halkaasi marayeen, nimankii ayaa bilaabay inay rasaas ku furaan. kadibna superhumankii ayaa ka soo duulay hawada sare oo halkii ku dilay nimankii August. marka afartooda waxay u soo dhawaadeen munaarada. ujeedadooduna waa inay burburiyaan nidaamka Augusto iyo maamulkiisa. Shiyaan waxay isku dayday inay kharibiso isha tamarta. miyirkeeda ayaa ka tegay, umana dulqaadan karin xajmiga korontada. kadib saaxiibkeed ayaa ka badbaadiyey korontadii ayaana soo gaaray khalkhal. kooxda oo dhammi qaybta kore ayay aadeen waxayna la dagaalameen Augusto. waxa uuna ahaa weli mid ka xoog badan. Augusto waxa uu ku dhawaa inuu markaani dhammaantooda wada dilo. marka mid ka mida ayaa isticmaalay awoodiisa oo xarig ku wada xiray. diyaaradii ayaana halkii ku duuftay, laakiin Augusto sidoo kale waxa uu ku dhow yahay inuu burburin doono diyaaradda. iyagoo arrinkaasi ka warhaya waxa uu jaray xariggii diyaaradda waxayna ku dhaceen biyaha. halkaasi waxaa timaaday Major Alina iyadoo macluumaad oga wada mashruuca August. Major waxa ay sheegtay in afartooda DNA-gooda haddii ay isku darsadaan ay yeelanayaan awood xoogan. midayntaasna ayaa waxaa midoobaysa awoodoodana ayaa waxa ay qarxin doontaa dhammaan xuduudka August. marka afartooda waxay bilaabayaan inay soo saaraan dhammaan awoodooda. waxayna bilaabeen mowjad tamareed. mowjadaasna ayaa ku dhacday dhammaan xarumihii August. dhammaan mashruuciisii oo dhanna waa uu burburay, isagiina halkii ayuu ku dhintay. afartii superhumanna aad ayay u farxeen kadib markii ay ku guulaysteen hawshii loo idmay. filimkeenuna halkan ayuu ku dhammaanaya. waadna ku mahadsantahay daawashadaada. haddaad halkan ku cusub tahay insha Allah subscribe tan ugu sharaf mahadsanid.